السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام دمان صحابة ميلو البود جوجتين waxaan filayaa inaad caafimaad qabtiin sidaan anigaba u caafimaad qabo maanta waxaan rabaa arrin yar oo aniga aad iiga naxsatay inaan falaqayno waan hubaa dadku way kala fikrad duwan yihiin wayna kala geesisan yihiin laakiin aniga waxaan ahay qofka ugu doqonsan dadka uguna geesinimada yar sidaa u taqaano waxaad ogtihiin inuu jiro wiil hooyadii dilay oo la toogtay shalay wiilkaas wuxuu dilay hooyadii waxaana xukun ku riday maxkamadda waxaana xukunkii ka oofiyay walaalkiis waxaan arkay clip yar oo asaga soo duubay oo walaalkiis oo aad u rogman tiirkii lagu dili lahayna ku xiran iyo asagoo idaacadda siinayo waraysi in la soo daayay waraysigaasi aniga run ahaantii aad buu ii taabtay because wuxuu noqday waxyaabo aniga ii taabtay iyo waxyaabo aniga aanan samayn karinba haddii ay dhacdo adiga walaalka inuu hooyada dilo ilaahay kuma keeno ilaahayna kuma tuso laakiin sideed noqon laheeday maxaad ka sameey laheeday ma dhici kartaa oo ma tahay qof dili karo walaalkeed hooyada waaba dhimata allah u naxariisto balse ilaahay nooma kaso laakiin mataalan aan ka hadlaynaa hooyada wayba dhimatay allah u naxariisto balse walaalka oo tiirka ku taagan oo la dilayo cabaadayo ku dhahaya walaal ha i dilin ma dili kartaa oo niyadu ma ku siinaysaa inaad disho walaalka aniga tayda waa maya ima siinayso niyada inaan walaalkay dilo wax kastaba ha ahaato walaalkay inaan dilo ima siinayso qalbigayguna ima siinayo inaan walaalkay oo tiir ku xiran oo taahayo inaan xabad ku dhifto balse dadku way kala fikrad dugan yihiin wayna kala geesisan yihiin aniga ma sameey lahayn qofkii rabta hadisho ama dawladdu hadisho ama qof kale hadisho laakiin aniga gacantayda kuma dili karo walaalkayo cabaadayo oo tiirka ku xiran kuma dili karo laakiin adiga fikirkaagu muxuu yahay waa kala fikrad duganaa waan ogahay adiga fikirkaagu muxuu yahay ma dili kartaa walaalka mase waa daylaheeday adiga ma dili laheeday mase waa daylaheeday run ahaantii anigu ma dili lahayn qof walbana hadisho haday rabto ama dawladdu hadisho laakiin meesha lagu dilayna ma joogleen mana dili lahayn waxa dhacday xalay anagoo 10 qofood ayaa meeshaan fadhinay hadda aniga aan fadhiyo waxaan fiirsanaynay clipkii laga soo duubay oo walaalkiis oo warbixin ka bixinayo oo idaacadda siinayo waxa in badan ay isku raaceen inay dili lahaayeen qola aan aniga ku jirana waxay isku raaceen inaan dili lahayn laakiin adiga fikradaas maxaad ka qabtaa ma dili laheeday mase waa daylaheeday su'aashayda maanta inaan idin weydiiyo aan jeclaysta waa taas waadna mahadsantihiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh